waxay u gaajoonaysaa inaad dheregto, waxay u daalaysaa inaad nasato, waxay hooyo u ooyeysaa u ciilkaambinaysaa in aad faraxdo adiga. Video iyo sawir la keenay oo internet iyo Facebook lagu soo tuuray, ha ka qaadanin diintaada. taas diin ma aha, ha ka qaadanin diintaada halkaa. Facebook yaanu diin kuu noqonin, Google yaanu diin kuu noqonin. bal diintan wanaagsan islaamka ka qaada, kitaabadiisa ka qaada oo culimadiisa warasatul anbiyaa ka qaada. kuwa rabbaaniyiinta wax ka badan ma laha caalamkee, luqad walbay ku hadlayaan, luqadaadii hooyay ku hadlayaan. ka qaado culimada dhexdhexaadka maanta haysaa. ilaahu ixsaanka ha ka dhuminin hooyo, inta hooyooyina ixsaankaa sameeya ilaahu ha ka dhuminin. sidaasaa la doonayaa jaarka inuu ahaado, jaarka in lagu inama si ahe ogow. waa wax jannada lagu galaya haddana, laakiin annaga waa isku caynaa, waa isbisiini. kii wadada qashin ka qaadayo, xaaqayo, nadiifinaya, waa isbisiini, shaqada isbisiini. rasuulka xalkeena keliya ma ahe salawaatullahi wasalaamu calayhi, annaga keliya arrinteena ma xalliye, xayawaanka xataa wuxuu u yahay maxay xal buu u yahay sala allahu calayhi wasalam. waana dadka mu'miniinta ay leeyihiin kuwa alle iyo nabigooda rumaysan, maalinka qiyaamo rumaysan, oo qalbiyadoodu ay ku xasilayaan waa maxay dikriga ilaahay. alaa bidikri noqdo adduunkan aad ka tagtid adigoo raali lagaa yahay, mar allaaliyo markaad tagtid aakhirana jannadii hore aad ka geshid miyaadan rabin? ilaa tigidkaagi waad wada tahay. ku salli, salliga rasuulka waa tigidkii aad ku geli lahayd jannadee. ku salli maanta uu u baahan yahay caalamkan, waa midda keliya, dhaqanka keliya ee caalamka maanta xal u ah, oo nacaybka iyo dagaalada iyo fakriga iyo kala tagga irdhowga qaxa maanta jira diinta keliya xallin karaysa weeyaan. wallaahi haddaan si dhib u qaadan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. أما بعد، إخوة الأعزاء، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ليال عاوة مدرسة وحين لا يضحي إذيلكين شرفكين وإسلامك. نحن أعزاء بالإسلام، وحانه شرف يعزي يقرح قدر قيمه، وحين كلنا هي كرقن كإسلامك، qaadashada islaamka, dhaqangelinta islaamka, gudbinta islaamka, si qurux badan loo gudbiyo, si dhexdhexaada loo gudbiyo, loo gaarsiiyo caalamka oo dhan. walaalayaal, islaamku waa diinta ilaahay raalliga nooga noqday, waa shayga keliya ee ilaahay agtii diin ka ah weeyaan. waa shayga keliya ee insaanka maanta uu u baahan yahay. islaamkeenu waxaa ku intifaacaya xayawaanka aan caqliga lahayn. xalay waynu arkaynay xaqa ilaahay uu siiyey, weliba kitaabkiisa uu ku siiyey xayawaanka aan caqliga lahayn ee aynu raranno, aynu gowracanno, aynu maaragtay ku intifaacno. inuu ku intifaacayo isaga qudhiisu, inuu ku intifaacayo islaamka. islaamkan walaalayaal xalka islaamka weeyaan. islaamkan, dastuurkan, akhlaaqdan, diintan maanta la saaran yahay, oo shayaadiintoo dhan ay saaran tahay oo ay raratay. islaamka wax laga sheegayo dhan waa been. islaamka waa sida ilaah baa keenay subxaanahu wa tacaala, waa siduu inoogu sheegayo oo uu u leeyahay waa diin raxmad ah, waa diin maaragtay midnimo, waa diin jacayl, waa diin dadka soo ururisa, dadka isku xidha. bal kuwa nool keliya maaha, kuwa nool iyo kuwa dhintay ayay isku xidhaa. dadka iyo waxay isku xidhaa xayawaanka, dadka iyo waxay isku xidhaa maaragtay ku dhow iyo ku dheer, intuba way isku xidhaa diinteenu. diinteenu
ودين مودة ويان ودين دحدحات ودين فلينيس إنسان كباهدي سافرها بدن كلا الدوان فلينيس ويان وحي هدي دين تسير باللوقاته والله إنا نجرين وحدا بقى الله باهناي ولا ليال عاوة إسلامك يو عفسك إسلامك يو عفسك قفك إنا عفسد إلهي سبحانه وتعالى وكأولها يو فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر يعني راح نحرس إلهي وكو ذي عيالي وكو ماركتاي وكو قددي وركاي قليي ايات كجل عناتد وات رحيم كن نقطي رؤوف كن نقطي واد ugu naxariisanaysaa ka dhow iyo kan dheer intuba muslim iyo gaalba xayawaansi iyo jinniga waxaad ugu naxariisanaysaa waa naxariista ilaahay ku wadeecayelay ee urkaaga uu geliyay walaw kunta faddan ghalid alqalb lanfaddu min hawlik haddaad ahaan lahayd mid angegan oo qallifsan oo qalbi adag la kari waa mashiidiya gacan ku dhiigle ah dictator keligi taliye ah aan naxariis lahayn way ka carari lahaayeen wax ku yimaada ma aadan aragteen cafi إنسان كان خلط كبضن إنسان كان إن الإنسان لربه لكنود إلهي أوليه مضح هذاك إنسان كان ضد بدن إسقى عن روف لقى أبوره إنسان كان عرب كدير إنسان كان عقل غير إنسان كان ضعيف عفي هدي يحكى عن عفي أيال الله حبيبك صلوات الله والسلام عليه فاعف عنهم واستغفر لهم قدام بداف إلهي دم بداف ويدي أبري إلهي يا وشاورهم في الأمر والله ليال رسول كان صلوات الله والسلام عليه سداس دائما إلهي أبري يجري وتقرن إنسان قصوين كفراح بدنا أحد مركي لداوعي وجهي لجاحي إلي قال لغير أو ماركتاي إن بدنوا صحابة أهل الله واكن للي هي صحابة قار إنكار إلهي بري عيدنا هلا كانوا سيدي بدر ليها اللوغا ماركتاي هاللوغا راعي بري إلهي لكن محولي هاي لا ودي ذا وحدها يا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون لفظك الوحولي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون كون إلهو هنوني كو ديق إيقا داديي كو سيدا إيقالي إلهو هنوني وحبا مقرنيان عقابتك دلنيس ما garanayaan waxooda la saxan ilaahu ka hanuuni sida de saxaabadan kale u hanuunisay Umar u hanuunisay Abu Bakar u hanuunisay asxaabtooda u ilaahu hanuuni waxba ma garanayaan sida weyn diinteena waa ka hadana diinteena waxay ogoshahay in qofka hadii wax la yeelo oo lagu gardaroodo la dulmiyo in uu isagana aarsado oo sidii loo dulmiyay oo isna u aarsado famisa laakiin waxa ilaahay raaciyay عفس kaas waxa xaqaagi laakiin xaq qiimi badan ba ilaahay ku si diinteena daa'iman dadku waxay ku dhiirisaa fadaaisha waxyaabaha aad ka maaragtay u ajarka badan markii ajarka ilaahay ba yaqaana sidii wax u kala ajir badan yihiin intii yare laynoo sheegay maahane ilaahay ba ogsoon markaas waxa la yiri wajazaa'u sayyi'atin mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin Allahu akbar يعني حمان أبالكيد وامحي وحمان هدي له درباحه ودرباحي هدي له هراتي وهراتيني إلي كلا تكون جودي ماركتا البد تكون جودي لكن وحل يروح حق بطول هذا سيدي لويالي أنتي لو جارسيي إن أدوجنا جارسيسد لكن محل الراعيي يا محل الراعيي الله أكبر دينتين وحن كجعلاني عد والبا هدي كبحد عالم كورن هدي كبحان أينن مرنا وبحين وحيتهاي فمن عفا وأصلح فأجره على الله
qofkii cafiya oo islaaxiya qofkan wax ku dhimay dhibaato qaba dabcan waxbuu dareemayaa xiqdi baa ku jiro waxbaa ku jiro wixii baad islaaxisay يا حمانتي دحدينا تالي بعد ما ركتاي حرقفتي يري دحدينا تالي اياد هاجاجسي يا وحي يري خلد دحي وا اصلاحيسي واد عفيسي قفكي غدها ظاهرا وباطنا واد عفيسي قفكا اسغا يا قفك انت wax loo dhimay hadana dadka cafiyay oo si islaahiyay fa ajruhu ala Allah ilaahay ay ajrkiisa yaqaana إلهي بأجر كيس أوفينيا وحل حساب كرماها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كو الصبراء دتك عافية أجر كوذا إلهي أوفينيا بغير حساب ما لنك قيامه ما لنك تأجر له باهنيه هل أجر وكو أنفعي أو جنك جيني عذابك وكاعلينايو الله أكبر هدنا شيء اللي هذا عافسك شيء اللي هذا وشيء وحيابها ugu fudud وحيابها ugu horeeya qof kiisa kan sabra wax afiya oo wax islaaxiya qalbiga ka saar uqdada walaalihi afiya waxa weeyaan wuxuu dhaxashiinaya jannooyin aan ma aragtay ma la ayn ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ayu dhaxashiinaya hadana jannooyin sarsare جنوي نعيم كودو دائم يهي واك إلهي أولاه سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله ودقدقة أيا لليهي أعمال وحالو شيغايا إنسان كي إلهي وشيغايا أعمال هدي آد قبطان أو آد سميسان جنوين كان عرق يقلولك بكوين وقفك قليو إلهي باكو جيناي ودقدقة جنوين كا يدن بداف إلا جنة دن بداف بامارك تاي لغو قلايب دن بقايا لنبا إلهي هو بنايا جنوين عرق يقلولك كوين يا أيو إلهي مارك تاي كو جينايا ودقدقة للي ودقدقة جنوين كا نوعا يا لو دياري جنوين كا للمتقين كو إلهي كعبصدا محاوع الشيء كان عفس كل يراهذا قف وحما عافيه إلا إنه يهتقي ماهنه قفك وحافيه سامحات بدن عافسك بدن يا ددك أردن لين سهل أفضل أدو قف والبا حتى حيوانك بيئة أدو جماداتك أدو كائسك دينتين وحي عدينيسا إنه يهي متقي إنه يهي تقي إلهي كعب سنة إنه يهي وانا كإلهي وأمانة دائما للمتقين واكو يكو متقين الذين ينفقون في السراء والضراء أباري آرنبا لمركو جري مركو داف أي جرتو انتبا وكان دائما قعنتي سفرانتهاي كريم ديقسي جنة ياكلو قال بخيل ما قال جنة بخيل ما قال جنة كاللباد واكي كان عردي سقرية والكاظمين الغيظ يا كان عرديسا هدي لقى حناجيو دريمي ميست وكو قسلايا وكو دعينايا يا واكاسا خير ايو كلية هاي يا وحكو حد قدب وحكدل وحكدع وحمارك تايا حمي عردقيسو وحوقيسو دائما واسيدة حبيب كينو يهي صلوات الله وسلامه عليه عرديسا قرية او انا ولاله مارك تاي وجيسا حن آنو توسن اوركيسا حن آنو توسن عرديسا انليس قدودا كقرية او دائما افرحسن لكن آوي وعريسان يهي لكن عرديسا اوركو كقبايا استقا اسكو علينايا وقبنايا قبنين كاس الدونك اوكو قبنايو يا oo walaalihiina de tusay wajiga quruxda badan isagana xagee hadhow ku qaboobaya jannooyinkan cirka iyo dhulka ka weyn ayuu durduuranaya afartii wabiba laga waraabinaya kawtarka rasuulka ayaa laga waraabinaya sallallahu alayhi wa sallam ka saddexaad wal aafina 'anil nas kan dadka cafiya caradina wuu qariyay uurkiisu ku gubaya dadkina waa cafinaya ma aha inuu ciil kaambinayo oo faruuriha qaniinsan yahay ma aha maba laga dareemayaba dadkii af iyo adin buu ka cafinaya
wuxuu ka cafinayaa ظاهر iyo baatin dadkii waa ka cafinaya bal weliba wuxuu ku dhaqmayaa idfac billati hiya ahsan ya ما هي نوسك آموسي ها فمن عفا وأصلح وعفيي كدبنا وإصلاحيي قفكي حمانت سمي أيوه هذا سي إصلاحنايا وأسي دعينايا أو قلبي سي فرحت قلنايا أو أموجنايا إنانو كأنما إستغانا وحبس سمينين أيوه كيلايا الله عفسك وشيء كليه دتك إسسو دوية خاصة دتك ديمارك تاي كلفوك dadka maaragta ibliisku kala geeyay shayga cafiska la yiraahdo wallahi shay ka wanaagsan ka wanaag badan ilaahay ma aanu sameeynin wad arki doontaan caawe haddana aayada kale waqtu ilaahay kulay subhanahu wa ta'ala wa an ta'fu aqrabu littaqwa Allah ya in aad cafisaan oo aydan aarsanin oo aydan maaragtay indhaha ku godin فروريا أقنين إسعيل كامبين إن أد عفسان عرديني أد قرسان أد إصلاحسان أد وناجسان أد حريرسان أد ماركتاي سود دويسان فرحت جلسان قفكي أيا عبسد أدو تاسع عبسد أدو متقي كاسو كنا قنايا متقين تنواكوه متقين تن إلهي حقو الضربي أو دياريي جنو عرض جيدا لا كوي هاي cirka iyo dhulka ha isku yaraynin shaqo weeyaan inaad walaalka cafisid inaad walaasha cafisid laabta u furtid hadhihin Allah ma hebel oo waxa igu sameeyay ma anaaba ka filay walaalka inuu waxa igu sameeyo Allah masaasu ii galay masaasu reerkay u galay ma waxaasu iga sheegay ma sidaasu ii shirqoolay ma waxa waa insaan kullu ibn aadam khata وحوالبا مهما أوسمي والالكا مهما أي سميسو والاشا أبتغا إيدادا هبريرتا إنسان ككودو يا مكافوك مهما وحوالبا أوسمي وإنسان كل ابن آدم خطاء إنسان كوا قفايا إنسان كوا خلدمايا محاوعي إبليس أيها كحرا annaga laabteena lama nadiifin sida xabiibka sallallahu alayhi wasallam looga saaray halkii ibliisku fadhin jiray maaragtaa fadhigiisii looga saaray nabiyullaahi aadam buu ka soo saaraya oo maaragtaa asigii ilaahay uu isku diray oo uu ka soo saaraya janno annaga ducafaanahay laakiin yaa u wanaag badan ibn aadam walba waaqifa kan soo noqda qaada hadiyadan rasuulku uu ku leeyahay salawaatullaahi wasalaamu alayhi oo walaalaha xiriiri oo walaalka xiriiri walaasha xiriiri eedada xiriiri habaryaraha xiriiri wax walba ay ku sameeyeen hadii cafiski xagga kale ay ogol yihiin adiga maxaa ku diidaysaa oo bilow adiga labada iskhilaafsan labada ruux ee iskhilaafsan hadba kan hormar ayaa ka ajir badan kan kale u ducee waliba faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah qofkii cafiya oo islaaxiya oo wanaajiya dadka farxad geliya aan u carooni caradiisa qariya ajirkiisa ilaahay buu ku leeyahay war inagoo dhan bay isu wada caraysan inagoo dhan imisa aabii wiilkii isu caraysan hooyii gabadheedii isu caraysan laba isqabtaa isu caraysan dariskii baa isu caraysan qaraabadii oo dhan baa riximkii oo dhan baa isu caraysan war ilaahay aynu ka cabsano waa kuwana jannad nimcadaana ilaahay maaragta agteena dhigay ilaahay iyo rasuulkiisa islaamkana tan inoogu yeerayaan naxariistan nimcadaana inoogu yeerayaan cafiskan ilaa furnaantan inoogu yeerayaan ibliisna inaan xanaaqno oo aan isgoyno oo aan isdilno oo aan maaragta waxun iska sheegno kala fogaano kala irdhowno ayuu noogu yeerayaa yay qaateen walaalaheena yay qaateen tii ibliiskay raaceen war ilaahay ha laga baqo ilaahay ha loo soo laabto diinta ha loo soo laabto qof muslim sheeganaya oo haddana aanan markuu aayadahan maqla dhehaynin samcan wa taacan wallahi islaamkiisu waa naaqis iimaankiisuna waa naaqis ilaahay aynu ka cabsano walaalayaal طيب cafiskaad arkaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa bilaabaya rasuulkeena qisuu nooga sheekeynaya salawaatullahi wasalaamu calayhi nabiyullaahi muusa calayhi salaam ayaa waxaa loo soo diray reer banu israa'iil markaa abaar baa dhacday sanad baa abaar xoog leh oo cirkii biyihiisii uu reebtay wuxuu u reebtay nin baa macsiilow ahaa 40 sano ilaahay caasinayay
markaasaa laga gooyey 170,000 taqriiban iyagoo ah ayaa roobdoon la sameeyey. nabiyullaahi muusa calayhi salaam ayaa hor istaagay, markaasaa ilaahay buu baryey, ilaahay bay baryeen suu u baryey markaasuu wuxuu ku yidhi ilaahayow intaasaan ku baryaye ma aadan na ajiibine ummaddan u gargaaro roob u keen. marka wuxuu yidhi alle ilaa way isla hadlayaan si toosa, alle wuxuu yidhi muusow nin baa idinku dhex jira 40 sano i caasinayey, caasinimada iyo cisyaanka ninka uu ku kacay inta uu ku maman yahay oo uu ku dhegan yahay roob idin keeni maayo. eeg ummadda 170,000 dhulka geedaha xoolaha waxaa roobka looga celiyey waa macsida yar ee ninka uu sameeyey. ma sidaas ahaa dadkii buu la hadlay, wareer banu israa'iilow ilaahay baan ku dhaariyey ninka 40 sano ilaahay caasinayey waa istaqaanaane ha soo baxo, ha naga soo baxo, isagaasaa la diidan yahay maaragtaa roobka in loo keeno, isagaa roobka uu la imaan laayahay. markaasaa wax baxaya male, waa 170,000 ninka bartamuhu ku jira geesuu fiiriyey, midig iyo bidix buu fiiriyey inaanu ruux bixin. markuu arkay wuu isgartay, marka nafsadiisu yaqaanaa inuu isaga yahay, markaasuu tartiib ilaahay ula hadlay. xaaladan waa xaalad waa la isfiirinaya, yaa baxaya la leeyahay. qof walba balkan 40 sano dadka cadaabayay yaa dartii roobka loo gooyey in la eegaha la rabaa, dhagaha laga sii garaaca. markaasaa ilaahay buu markiiba hoos ka bariyey, allah wa idaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib. islaamkeena nimcadiisu waxaa ka mid ah haddaan rabno ilaahay inaan barino, inaanan sheekh hebel iyo inaanan dad sii maraynin, wasiiro sii maraynin, inaanan maaragtaaye meelahaas maaragtaaye qof inaanan ergey iyo inaan shafeeca inaanan raadsanaynin. fa innii qariib ujiibu dacwata daaci ilaa dacaan. markaad u baahatidba gacmahan baad kor u taagaysaa, markiiba ilaahay waa ku ajiibaya. allahu akbar, macaanka diinteena fiiri. markaasaa ninkii ilaahay buu baryayaa, ilaahay buu baryay. maxaa waxa wuxuu leeyahay ilaahayow 40 sano ayaad i asturaysay, maanta haddii aan baxo oo aan banaanka aado waa ceeboobay. haddii aan ku sii dhex jiro jamcigan dadkan faraha badanna waa dee roob heli mayno, dhibkii waa nagu sii soconaya, dhibkii ayaa nagu sii soconaya. maxaan sameeyaa marka? yaa rab gacmuu kor u taagaya, yaa rab أنا اليوم أتوب وأندم وأعود إليك فتب علي واسترني. الله أكبر. ما أنت وكتبت كينايا هوس ولي قلبي سيسقي إلهي بايس مغلي أغو وكتبت كينايا ما أنت أديغان ماركتا وانكش اللينا يا فرطن كي سنة أن دنبي سميني وانكش اللينا يا ما أنت وانكو صولابتي إيقا توبت أغبل أستر روب نوكين ما بيحكري وعيبو بيا إلهو إلهو توبت يا أغبل وتوبت خالص مركب إلهي محسمي. الله أكبر. يا روب كي يجيبت موسى ويابي أبو يا موسى عليه السلام محويري إلهيو دي قفنا مبحن روب نوات كنت واسدي ننكي وطوبت كيني موسى ننكي إلهي وإيسو لابتي ننكي وإيسو لابتي أنو ماركتاي إبري وإيسو نقضي توبت دي سنة وأقبل مركاسو يري إلهو يتوس أن كفر حين ننكا توبت ديسا مرة بينو عيبايو dadka inuu tuso, laakiin inaan xambaaraan raba, inaan dhunkadaan raba, inaan maxaa qofka toobada keena waa ma sha Allah waa loo hambaliyeeyaa, waa la soo dhaweeyaa. islaamku wuu ku farxaa, bal ilaahay baa uga farxad badan. itus markaas wuxuu yiri Muuse 40 sano ayuu icaasinayay oo aan asturayay oo qofna uusan ogaanin. ma maanta oo uu ii toobad keenay adoonkayga ayaan fadeexaynaya. Allah دينتنا دين فضيحة معها دين فضيحة معها. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا يا ساتر استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. إلهو قبلهنا أستر wiilashayna astur inagoo dhan ina wada astur
والله ليال كاكي إلهي بوها سبحانه وتعالى محاوع إلهي يا رسول كيسا مفران شيء إلا إيجا سميو بالله تاو هذا مركوري رسول كان نواكنا صلوات الله والسلام عليه أنا عفي سوءنا كشاكين مايو لكن دتك نهاية كذابين تدجالين تنهاية دين تن معها دين عفيس دين تن دتك يدشا نحرس ملها دين تن ودين آرسي دين تن ودين ماركتا انتقام نهاية أيان ربا إن أي بين شيئا waxa ka keenaya xiqd iyo xasad iyo urxumo nacayb uurkooda ku jir oo ibliis geliyay in ay tahay baan rabaa in yar inaan idin tuso maaragtay aan idin cadeeyo waa aayad waxaan akhrinay ogow waa ahadiis wada saxiixa weeyaan waa kan rasuulkeena sallallahu wa salaamu alayhi Abdullah ibn Amr ibn Aas ayaa wuxuu leeyahay rasuulka quraanka kali ilaahay kuma sifaynin inuu cafi badan yahay oo uu maaragtay dadka cafiyo bal kitaabadii hore way ku qornayd waa kitaabadii hore oo dhan wuxuu natusayaa kitaabkii tawraad oo uu soo arkay Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu wa ardaa والله بوليه إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن قرآن كسيد اللوغو سفيه قار كميدا سيدو إلهي قرآن كوغو سفيه آيات توراتنا اللوغو سفيه مع كميدا واحد تورات كيالي ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر معها نين أنججن معها نين قلب سن ما هين رسولك نين قلبي أذق ما هين نين سوق يده ووريجو قايلب بدن دي موارد سوق يده وحمات لا والله ما عندنا وحن دارنا وحن بين شيء وحن هبلوية وحن سوق يده وريري أو ما ركتاي هون كي بابور كي عد كي دتك لك لجرن لا أيهاي سريكتي يمرو أدي دتكو أي كتكتي ما هين حبيبك صلوات الله والسلام عليه نين قلبي أذق ما هين نين سوق يده كوك قيلية ما هين نين أنججن وأن حريص لهين ولا يدفع بالسيئة السيئة يا منا هين مد ما ركتاي حمان هدي لغو سميو أما وحو لو جيستو مد حمانتي كو أرصد أو كو قتنا ما هين حبيبك لكن محاي هين لغن كيسو ولكن يعفو ويغفر وتوراة بيكو تالا هذا الله وحيكو يالا وتوراة وكتاب كريم بنو إسرائيل لغو دجي نبي الله موسى كتاب كيسي ويان ومركو صحها ما كان مانت لتحريفيه اللي بدله ما ركتاي قف والبا او wax ku darsaday maaha kan waa shirka waaye kan waa la wadaaga ummadoo dhan baa wada wadaagta jiilkii soo baxay waxbuu ku daraa dhowr iyo 10 kitaab cusub weeyaan hadda hal kelima ba ahaba keed raacaysa oo tawraada bible-ka waa kee imika mala marka ma aha nin xumaan ku guda ma aha laakiin wuu cafiyaa عفس كليا ميه وقدم بدافع ويديا حدنا الله أكبر أنت صدق بوس كنت راح يك صلوات الله والسلام عليه القرآن كان محولي أي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك يا غليظ ماهد لأن حريص بدن باطهي أوركاجر أحمد باكبوحذا هذا من مضح هذاك أو قلب سن قلبي هذاك عرب بدن أهان لايت ويكاكل عراري لهاين لكن ماهد عايشنا ويسوقيسا يدا لا دقنتي حاسكي ووجع على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حاسكي ووجع على حبيبك أي أحد صلى الله عليه وسلم وقبرنا مكو قرسدي واتأيلاده هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ما هين إن أفحن أو فعل حن أو سقيدة كوك قيلية نين ما حمان كوجدا لكن وحوها قف وحافية أو وحسامحة أو أورك ضد فرحت قلية أو أنا أرسنن أو ولي بالدعاء وقدر أيوها وحول بيولوجيست ولقي انتقام أنو سمين نفس دي صلوات الله وسلامه عليه رسولك واحد قرنس صلوات الله والسلام عليه إن إساق إيوئيل كيسي أصحابتيسي لقسو عيريي مكة حوله دي قريه دي هانتيدو دي وننا لقا ريبتي أو مديني مادين إلهي با وقت الدنبق قولسي أو مقالدي كل عليي
dadkii wax dhacay wax cayriyey xumaanta waday markay u wada yimaadeen oo ay dee maanta laga xoog badan yahay ciidankan uu taqriiban 10,000 oo jeysh oo dee tababaran commandos uu wato ya muxuu yiri iyagoo yaaban maanta dhigta dhiiga lidin dara iyagoo leh wuxuu yiri la tathriba alaykum al-yawm لا تثريب عليكم اليوم ما انت عرم جرتو ما انت وحبة دنبي ملهذين اذهبوا فأنتم الطلقاء تقول حربتهين عد وحيدين هايستها ويراتي ملهد حقين لك هلا حقين لك هلا إيشاق إنسان كعالم كجوغة من لدن آدم عليه السلام إلا وقتنا حاضر نحاريستا صوكا لا قفور كيس أي كجرت إيشاق أبدا 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 فبما رحمة من الله لنت لهم نحرس إلهي آيات كجل عنات بالليه هذا نواكنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم مال ما كمده إنير أيا وحوس حدي جيت هوستي سافتين وحوسرتي لانكوري نبى صور لونتي صحابة كسوت تلعب صدي سافتي بقول لبحي الله لمركو لبحي أيو كوقبتي مركز يري يا من يمنعك مني يا محمد يا يك علنا ما تواكنا قرتن كاغو إنه دلو روا مركز وحو يري ما عبسنين waxaa ay geesi u ah xabiibkeena salawaatu Allaahi wasalaamu alayhi ninka ugu geesisan insaanka oo dhan buu ahaa markaas wuxuu yiri Allah ma naxin ma argagaxin ma bodboodin ma aragtay markii wuxuu yiri Allah waxa ay uurkiisa Allah ku weyn xabiibkeena salawaatu Allaahi wasalaamu alayhi ilaahay baa iga ka ma aragtay ceelinaya markii ninkii kaale adiga sheeg dhag bahashi uu hayn kari way ka dhacday markaasuu qaadanaya xabiibka salawaatu Allaahi wasalaamu alayhi markaasuu leeyahay waman yamna'uka minni al'an hadii ay ka celinay adiga wuxuu yiri ninkii jaraynaya dhidisan baqaya ayaa wuxuu yiri ya kun khayra akhidin ya Muhammad ado mid seef qaadkii oo khayr badnaa Muhammad oo sidaa noqo ya cafi waa ninkii hadda ku dil rabay ogow markaas la cafinaya reerkiisii buu u tagaya qisadii uga sheekeena markaas muxuu dhahayaa ji'tukum min 'indi khayrin nas waxaan idin kaga imid oo aan imika ka imid insaanka oo dhan intii aan arkay kii u khayr badnaa kii u cafis badnaa kii u raxmad badnaa ninka dhahayo waa gaale ogow gaalada xataa sidaasay u xaqira oo sidaasay maaragtaa rasuulka ay u qiraayaan naxariistiisii iyo cafiskiisii Allahu akbar يا خيبر واتقرنيسان خيبر مركي لفرتي سندي تدوبات هجرة مركي لفرتي أيام مال با رسولك لوغي سمي قضو راشينكي مركا هلبو أها قربي وحبا كجري مدبا يهودا وحي اوغاتي قبر يهودا وحي اوغاتي إن قرب كوجعليها مركاسي ترئي دايما ما أنت أنيري إن كان أنا أقانا شقديسي إني وحي ربتا ديشو سنبي كسو بوحيسي مركي با رسولك صلى الله عليه وسلم عليه قرب كيبا الله هدلايا oo u sheegaya kaasuu leey gabadha hala keeno wala keenay markaas wuxuu ku yiri in hada al-'azm wa haya lafta ogow in hada al-'azm la yukhbiruni annahu masmum garabkan aad ii keentay hilibkan ayaa ila hadlayo wuxuu ii sheegayaa in uu sumaysan yahay rasuul Allah waan sumaysnahay hay cunin ayuu leeyahay ya sumeeyay markee garabka run buu sheegaya garbuhu ma hadlaan جماداتكم ما هضلان هدي هضلان وحق هذا الكودة إلهي أو حق هيا كهذا الشيء مركز وحير قرب كان وحو إليه هيوان سميسنا يا سمي مركز إليه أنا سمي ومحاضو سميسي وحال هادي بقر أو يهينا يا سمتا سادي ليس وحو قرقارا يمالها ما أنت وحاوي وكنا سنسان واتكرها حي سنسان هدي النبي لبا يهينا نبي دبا هدي uu yahayna waa loo sheegaya oo ilaahi ba u waramayaan laha gabadhii muxuu ku yiri miyuu ka aarsaday ma yee orod buu yiri orod waa ku cafiyay Allahu akbar waa kana kii seefta u qaatay wuu cafiyay gabadhii sunta ugu darrabtay wuu cafiyay walaalayaal waxaan ku soo khatamay dardaarankan oo xabiibkeena salawaatu Allaahi wasalaamu alayhi uu nagu dardaarmayo cafiska sheega la yiraahdo runtii waa dardaaran mudan in warqad dahab ah qalin fidda ah in lagu qoro
dardaaran guryaha inaan ku dhegsana xafiisyada inaan ku dhegsana ummadeena ilmaha yaryar inaan ku tarbiyeyno inta ay arkaysa ee maqli doonta in ay sii gudbiso oo ay sii gaarsiiso qof walba oo gudbiya arrinkaana waxaan hubaa ee ku dhaqma oo gudbiya isagoo ikhlaas ay ka tahay mukhlis lillaah wallahi waxaan hubaa maalinka qiyaam in ilaahay ka abaalinayo arrinkan eeg saxaabigan jaliilka Uqba ibn Aamir al-Juhani ayaa wuxuu leeyahay radiyallahu anhu ardahu waxaan la kulmay حبيبك أيان لكل مي صلى الله عليه وسلم مركز وحو يري ألا أخبرك يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة مكو شيغا عقبو مكو شيغا أخلاق ذا وقو فضل بدن وقو وناكسن إلهي وقو جعليهي أخلاق ذا وقو فضل بدن الدون يا آخره والدنيا آخره qofka hadii uu akhlaaq ka dhigto dhaqan ka dhigto shayga adduun iyo aakhiraba ugu wanaag badan ma ku sheega Allahu akbar haabu yar iishak xabiib allo ya adiga hadii gabadhaadan adoonta ilaahay adan kula hadlaya haab isoo eegaya gabadha kale fadhida hooyo ee wiilkaaga ideelkii adoomada allo haduu idin dhihi lahaa maanta xabiibka sallallahu alayhi wasallam alayhim war ma idin sheega heblaayo hebelo ma ku sheega war ma idin sheega akhlaaqda ugu fadliga badan ee ilaahay bixiyo adduun iyo aakhiro rasuulkan uu idin dhahay sallallahu alayhi wasallam alayhi maxad dhihi lahaydeen noo sheeg waa kan caaw idin sheegaya qabsada goos dambeedkana ku qabsada wuxuu dhahayaa tasilu man qata'ak wa tu'ti man harramak wa ta'fu amman zalamak xiriir qofkii ku gooya Allahu akbar qofkii ku gooya walaal ha ahaada walaal gabar ha ahaato wiil ha ahaado nin ha ahaado waalid ha noqdo qaraabo abti eed adeer asxaab qofkii ku gooya ha gooynin akhlaaqda muslim malaha ha gooynin ee xiriiri ilaahay dartiina u xiriiri maxaa waxa ajarka adaa qaadanaya حساب باكو سعوتا محاوعي والو دبايا والو غويي والو urxun yahay laakiin adigu waa xiriirinaysa waad la hadlaysa waad wacaysa waad maaragtay u duceynaysa ilaahay baad u baryaysa inuu soo hanuuniyo waad shaqeynaysa maxaawacay ibliisku isaga qaatay taladiisi adiguna taladii ilaahay baad qaadanaysa qof walbo qaata taladii ilaahayna الدنيا آخر والليبانايا حرير قفك كوجويو سي كان كوهوجيا كان وحكو ديدا سي أديكا ملقو ديدي ها سي شلي بو وح ديدي حرش بان وهيا دينتي بو ديدي ويغو حميي مايا سي أديكا أوكسون إنو وح بدن كو ديدي مرول بكو ديدو حالي شلي مانتا هدا وكو ديدي سي أديكا سي مرنبها حسوسين انتا لما شيء والي إلا ويوغاده توتالي تنوى زيادة قاتا حمانت اللقوق جيستي والي إلا إلهي باكا أبالينايا وناقعات سميسي إنسان كات أسميسين والي إلا لما شيء لوضب إلهي باكا أبالينايا كان سدحاد ومحي وتعفو عمن ظلمك عفي قفك كالظلمية عفسك أي نسكو أغانو والله عفسك ومدي نغوه الرئيسي يا أيام ماركتاي كوغو ليستي جنة يكو غالين رسول كاركين جنة لغو غالي صلوات الله وسلامه عليه وانت ينو الشيغي إلهي بسمية رسول كسمية أصحاب تسميسي واللغو الليباني dadkii caqliga lahaa oo dhan cafiskay ku liibaaneen annagan aan ku liibaano aynu iscafino ogaada diinteenu waa diin cafis dhalin yaro dajaaliinta kadaabiinta fitnada la wareegay islaamna caybka muujiyay ilkaha miciyaha la soo baxay ee duraya diinteena inaan cafis lahayn tusa inay cafis leedahay diinteena aynu iscafino haddaan nahay muslimiin khaasatan Soomaali haddaynu nahay uurkeena aan sifayno aan isjeclaano habeen dambe intaynu isaga imanayno أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxay u gaajoonaysaa inaad dheregto waxay u daalaysaa inaad nasato waxay hooyo u ooyeysaa u ciilkaambinaysaa inaad faraxdo adiga video iyo sawir la keenay oo internet iyo Facebook lagu soo tuuray ha ka qaadanin diintaada taas diin ma aha ha ka qaadanin diintaada halka Facebook yaanu diin ku noqonin Google yaanu diin ku noqonin
bal diintan wanaagsan islaamka ka qaada kitaabadiisa ka qaada oo culimadiisa warahatul anbiyaa ka qaada kuwa rabbaaniyiinta wax ka badan ma laha caalamkee luqad walbay ku hadlayaan luqadaadi hooyay ku hadlayaan ka qaado culimada dhexdhexaadka maanta haysa ilaahu ihsaanka ha ka dhuminin hooyo inta hooyooyina ihsaanka sameey ilaahu ha ka dhuminin sidaas la doonaya jaarka inuu ahaado jaarka inuu inama si ah ogow يا وواحد جند لو قلي حدنا لكن أنا واسكو عيناه واسبسيني كي وضد قشن كقاضي وحاقي ونظيفني واسبسيني شغال اسبسيني رسولك حل كينا كلية ما هي صلوات الله والسلام عليه أنك كلية أرنتين محلية حيوانك حتى وياهي محي حلب وياهي صلى الله عليه وسلم وأنا ذلك المؤمنين تأيليهين كوا اللي نبي قوض الرميسان مالك قيام الرميسان oo qalbiyadoodu ay ku xasilayaan waa maxay dhikriga ilaahay ala bidikri noqdo adduunkan aad ka tagtid adigoo raali laga yahay mar allaaliyo markaad tagtid aakhirana jannadii hore aad ka geshid miyaadan rabin ilaa tigidkaaga waad wada tahay ku salliga rasuulka waa tigidkii aad ku gali lahayd jannada ku salli maanta uu u baahan yahay caalamkan waa mid kaliya dhaqanka kaliya ee caalamka maanta xal u ah oo nacaybka iyo dagaalada iyo fakhriga iyo kala tagga irdowga qaxa maanta jira diinta kaliya xalin karaysa weeyaan wallahi haddaan si dhib u qaadan ha ha ha